xiddiga fanka Soomaaliyeed Daahir Maxamuud Sheekh Muuse Dayaxdal Nuurshe ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho muddo uu ku noolaa magaalada Hargeysa ee Somaliland. Dayaxdal Nuurshe muddadii uu ku noolaa Hargeysa ayaa wuxuu soo bandhigay fan horumar leh isagoona bulshada ku dhaqan reer Hargeysa ay ku mahdiyeen la joogitaanka uu Hargeysa la joogay Dayaxdal Nuurshe. Dayaxintii Hargeysa ku sugnaa wuxuu ku qabtay dhowr show ka ay soo buux dhaafiyeen malaayiin shacab ah oo ku nool Hargeysa. xiddiga fanka Soomaaliyeed Daahir Maxamuud Sheekh Muuse Dayaxdal Nuurshe ayaa show ku qabanaya 17 bishan aynu ku guda jirno magaalada Muqdisho. xiddiga fanka Soomaaliyeed oo aan ka wareystay xilligii uu ku sugnaa Hargeysa iyo haatan uu joogo magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha uu qorsheynayo. waan salaam dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka ka joogtaan waa ku mahadsantahay walaalkay Ismaaciil say soo dhaweysay adigii dhalinyaradeyda kaamiraamaanadeeda khaaska ah maxaa la saaxiibaday walaalahay waxa waa aniga dadka aniga asxaabteeda leeyahay hadaa xamar dib ugu soo laabanay asxaabteeda ay soo dhaweyso wallahi xamar sida ugu soo xiisay ma qiyaasi kartid maadaama hooyigii labaad Hargeysa jooga hadana waxa waaye meesha ku dhalatay ku soo kortay asxaabtaada iyo dadkaaga ay ku nool yihiin waa garan kartaa marka wax badan ka soo maqnaato marka muhiimadda aan rabay inaan ka hadlo waxa waaye hadduu Ilaahay raali ka ahaado 17 bisha habeenka Talaadada iyo Arbacada soo galayso maxaa la ii sheeg showba magaalada Muqdisho ka dhici doono waxa lagu dhigayaa liido Muqdisho Guest House ka soo horjeedkeeda Coconut marka insha Allah hadduu Ilaahay raali ka soo qayb gal wanaagsan waxa mar haddii la isku soo xiiso waqti badan la kala maqnaa soo galootigina haddii la iska soo galo wax xun waayeen ku dhaay marka waxa waa showgii iyo wixii hoosheeda hal wato waa ka marka Muqdisho cadeey والله إسماعيل حاج عبد الله SBS TV مقالة مقدشو.